adduunku waxay ugu Soomaalida adduunku waxay ugu jecel yihiin dadka dabar gooyay adduunku ugu jecel yihiin waxay jecel yihiin dadka ayaga baabi'iya waxay jecel yihiin dadka aan nolol u ogoleen waxay jecel yihiin dadka horumarkooda aan jecleen waxay jecel yihiin dadka always ayaga ciqaaba Soomaali Maxamed oo dhan dhaqankooda markii la fiiriyay iyo diintooda war waxa ay ku dhaqmaan isma dhehaysa dadkaana xataa diin leh wallaahi shakiyaaba kaa galayba qaabka ay isku ruufiyaamayaan qaabka ajaanibta ay jambalada iskugu tuurayaan qaabka nolosha ay iskugu ogoleen qaabka horumarka ay iskugu diidan yihiin qaabka ay iskaga daba shaqeeyaan qaabka nolosha dhan ay iskugu diidaan Soomaalida adeen la idin kaga sheekeeyo wallaahi billaahi tala xataa maniyay sanaysid dadkaana diin islaam xataa ku dhashay madaxaaga xataa ma galayso dad waxaan nahay aad u xaasisan waan gubanaynaa markaan maqalno qof bini aadana horumar suubiyo annaga dhanaa gubanayno intaan ka maraynaa gaaladan ku ruufyaamina ajaanibta tagayna feelkiisa soo bixinayna buuqaan ku furayna that's who we are as a Somalian gaalada aniga dariska ila ah hadda waa gaalo diin islaam ma haystaan nolosheeda xitaa isku maanaan dhicin waa gaaladii cadaanka hadda dariskayga waa gaalo iyo yuhuud nolosheena isku maanaan dhicin nolosheena inta deganaa xitaa isku maanaan dhicin buuq ma leh sharqan ma maqlaysid kuma baadar gareynayaan afaarahaaga ma galayaan xitaa qaaraanba xitaa hay ku dheheenba way iska ka agmarayaan Soomaali ma barate haadhe halkaasaa lagu galaa dhalmaan lagu ogoleen oolaadaan lagu ogoleen horumaraan lagu ogoleen jacayl iska dhaaf iyo walaaltinimo ah Soomaaliyan meeshaad ka farxi lahayd qof Soomaali marka aragtid waa naxaysaa qof Soomaali nolol fiican ku nool hadii aragtid waa ka dab wareegaysaa inta ka baxaysa agensiyaasha tagay inta ka soo meersane waa ruufyaame dawladda u sheegay maanta dhan soo laabane maanta dhan afaarihiisa maanta dhan waxa jeceshahay inuu qofka Soomaaliga nolosha adi ku nooshaa camal inuu ku noolaado sidaas isku daba joogaysan maanta dhan waxaysan gaalada suubin annaga bas suubin yuhuud xitaa ma suubin waxa annaga maanta markaa maqashid hebel lacag uu leeyahay su'aal kale muu diris qabiilkeewa yani dad waxaan nahay ducfi adduunka dadka ugu liitaan ku dhahay dadka ugu liito dhaqan gaalmaha dhaqan muslimaha dhaqan yuhuudmaha hinduumaha dhaqan muslimaha waa dhaqan Soomaaliyeed in qofka marka lagu yiraahdo alla qofkaas she is another level oh he is another level marka lagu dhaho waxa leedahay qabiilku yahay waxa leedahay qabiil hebel waxa lagu leeyahay waxbay soo dhaceen tuugo waa familku ka dhashay mataqaan meel familka uu ka dhashay wallaahi billaahi Soomaaliland ayaga soo foqsada lagu leeyahay Soomaalidu waa dad yani aaday waxay u yihiin dad maata ah dad ducfi ah war dhaqankan hal la bedelo dhaqan Soomaali ma aha waxaan dhaqankan hal la bedelo diin muslim ma aha dhaqan muslim ma aha dhaqan Soomaaliyeed ma aha ina qof walaalka ah horumarkiisa aadidid qof walaalka ah libintiisa waa adiga libintaada always remember libintiisa waa libintaada markii lagu ceenayo adoo lagu aqoon lagu ceenaa social media xitaa lagu ma yaqaano noloshaada lama yaqaano waxa qabatid lama yaqaano nolosha ku noshaa lama yaqaano businesskaaga lama yaqaano waa walaadiin soo fariistaba waa bal iska kinceyno yaaba noloshaada iska dhaafay xitaa wax adig ku soo galay iyo wax ku baxay xitaa ma yaqaanaan noloshaada xitaa ma yaqaanaan way iska ceenayaan social media ولا اسكا كعينا ما انت لو عينا سي لو عينا ولا دالا موقتها هدوتي صلاه بالتكنيا الا الله اكبر الاسكليه وحبا ما كجيران wax ka jira iskir salaada aad tukanaysan dhan inta joojisaan mataqaana oo kutaabada xagga iska dhigtaan shaqadiina wata because kutubka gacanta aad ku qabanaysaan iyo waxa aad qabanaysaan isma lahan diinta sheedaamada xitaa ma aha waxa aad suubinaysaan diin muslim iska dhaafay xitaa diinta sheedaamada xitaa ma aha in qof bini aadan xayaatadiisa dhan la kala gooyo xitaa adoo aqoonin qof aan la iska frame gareenaya noloshiisa dhan lagu dheelayaa waxaan maqlay waxa la ii sheegay daazed qofka markaa frame gareysid waxa rabta aad ka sheegtid noloshiisa aad baabi'isid war waxa aad aaminsantihiin wax ka jira mala waxa aad sheegaysaan wax ka jira mala runta markaa ogaataan oo wax walba banaanka ay u soo baxaan oo nolosha dhabta ah ogaataan oo waxaan aaminsantihiin dhan aad tiraadaan war waxaan aan daldalaynay iyo dadkaan aaciinayna dhan wax ma ka jiraan maxaan suubinaa raaligelin ma shaqaynaysatay raaligelinta aad wadatid shaqayn mayso kuna adee muslimta kuna ee gaalooda wax shaqaynaya iskeer wajigeega magaca qofka shakhsiyadiisa businesskiisa afaarihiisa noloshiisa dhalmadiisa gurigiisa gabadha iyo ninkeeda guryaha marka aad soo dhamaysataan hadhowti waa ku apologize gareena it doesn't work waxaa sheegtay waxay noqonayaan wax lagaaga fadhiyo berri
wax lagaaga fadhiyo oo xisaabteeda lagaa rabo waay ama adduunyaha lagaaga qaato ama aakhiraha lagaaga qaato sorry it doesn't help anything